dhagaystayaal ku soo dhawaada channelkayga Hanfada Production. Fadlan wixii su'aal ah oo aad weydiin lahayd igu reeb qaybta commentiga. Please subscribe, comment, like and share. Furo notification-ka si markasta aan wax cusub u soo gusho kugu soo dhaco mahadsanidin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulan wacan oo wanaagsan dhagaystayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan. Rabadaanu Kariim. Ku soo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha. caawa barnaamijka ciyaaraha waxa marti iigu ah oo aan ku wareystay Cabdi Hoodan Cali Dayaxleef inuu ahaa ciyaartoy hore gobolka ama naadiyaal badan u soo ciyaaray markii dambe noqday gudoomiyihii sportsiga kii ugu waqtiga dheeraa wararkaas iyo warar kale oo badan ayaan ka wareystay Cabdi Hoodan oo jooga dalka Ireland ku soo dhawow channelkayga Hanfada Official Cabdi Hoodan عبد الغفار محمد علي والله waa ku dhawahay jirnakaaga aad baa maasanta waxaan jeclaystay inaad bulshada isbartid magacaaga oo saddexan iyo halkii aad ku dhalatay aad baa maasantahay aniga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Hoodan Cali Dayaxleef waxaan ku dhashay magaalada Gaalkacyo 1974 waxaan dugsiga sare iyo dugsiga hoose dhexe ku soo qaatay magaalada Muqdisho amaasanta Cabdi aad baa u mudan tahay barnaamijkan guda galeynaa waxaad iga warantaa waayahagii ciyaareed halkii aad ka soo bilowday markii aad gobolka Mudug timid kooxihii aad u ciyaartay warbixin bal naga sii Cabdi horta aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii waxaan marka ugu horeysa intaan su'aasha gelin waxaan rabaa inaan ku mahadceliyo runtii juhdiga gelisay in sportskii gobolka Mudug iyo magaalada Gaalkacyo waqtiga fiican aan soo wada qaadanay in أنا بقف دنيرة متقن هالك كوعسنت أدنى كأجمع علمية أنا وحن متقن هالك عيمت سجاشن الشنتي كدي مركان كسر بتدل كينيا عن مركي هر وقحمة هالك أصيان سبورتس كي مجال هالك عيو وقبلودي نادي جوهر يسي عن صفتي وحوها نادي اللي بيجري تجي دتك كي ملا كي ما نهين ومركزي وحا كتشري سدح نادي magaalada Gaalkacyo ka jirtay oo SWS SWC iyo Beriya Baanad iyo team anaga ahayo la liijiyo Utanga dadkii Utanga meelaha ka yimid baan ahay halkaas markii sportskaygi ka soo bilowday koox badan baa tirisay ugu dambeyn imisa koox ayaa hirgalay waqtigaagi oo gobolka ka dhisnaa walaal horta aad baa maasantahay markaas aan ku sheegay waxa jiray saddexdaas naadi oo سنتان كحسوستو SWS أو SWC يبريا بانت كل واحد هايين عاشق تيم متقن جيوغ دولها يو حرنت أغونتا أو أيضا تيم لهاي إني من دليرا يو سكبري بانت هاي رج متقن بوريها مغير شريالها والله بحبريا بانت كدب أنا يو مركز كني بكينيا أو تدك دبوا صلابتيو dib looga celiyay Kenya oo Tanga meelaha ka laabtay dhalinyaro aad u tiro badan aan ahayn halka waxaan ku sameynay team la yiraahdo Tanga halka marka waxa ka jira 95tii afarta team ayaa ka jirtay oo lagu bilaabay adigu waxaad ahayd dabcan ciyaartoy position-kee ka ciyaari jirtay walaal waa maasanta Cabdi Qafaar aniga horta position-adan ka ciyaari jiray waxa ahaayeen position-ada dhexda ah oo inta dhexda ama lix ahaato ama 8 ahaato ama 10 ahaato intaas oo lambar aan saddexdaas wada afarta lambar baan ka ciyaari jiray saddexda lambar baan ka ciyaari jiray inta ugu badan dabcan xulka gobolka Mudug baad u ciyaartay wax ma ka xasuusataa ciyaarihii aad ciyaartay saaxiibadii garoonka kula jireen wax ma ka xasuusataa waa maasanta Cabdi Qafaar runtii wax la iloobi kara ma ahayn sababtoo ah taariikhdaada markii aad dib u xasuusatid waayahaaga sports wax la iloobi karo horta ma ahan wax halkan lagu soo koobi karo 20 daqiiqo hal saac lagu soo koobi karo ma ahan runtii waxaan soo wada qaadanay dhalinyaro aad u tiro badan oo sports ah marka gobolada Puntland markii la yiraahdo gobolada waxa la dhihi jiray waqooyi bari la isku dhihi jiray runtii ciyaartoydu waxay u badnaayeen gobolka Mudug nugaal iyo bari iyo boosaaso oo ciyaaraha markaas waxa ka jiray ciyaaraha mutaqaana kooxays waxa la yiraahdo ama koob lagu qabto
iyo marmarka qaarkood cayaaro saaxiibtinimo oo gobolba gobol kale u tegi jiray baa ka jiray runtii waxay ahayd waqti aad aan loobi karin bay ahayd oo na soo maray ma garad waa hagaag intaad u ciyaaraysay xulka gobolka mudug ma ka mid ahayd dadka ugu muhiimsan ee line-upka joogtada ka haystay xulka cabdiqafaar waa mahadsantaa walaale waa su-aal aada u fiican kolay runtii aniga waqtigan gobolka u cayaarayay waxay ahayd waqti aada mataqaanaa ragga sportska ama kubadda aada mataqaanaa loogu xisaabtami jiray waqtigii ugu badnay bay ahayd runtii waxay ahayd ilaa iyo dad aan kala dhicin bay ahayd oo aan dee qofka kale uusan ka liidan ma xasuusto runtii cabdiqafaarow waxaa jirtay mararka qaarkood in mataqaana xaalad caafimaad darre ay jirtay inaan garoon ka maqnaado ama aan gadaal ka imaado laakiin ma dhicin anigoo caafimaad qabo oo xayi ah inaan mataqaana ahaa dadka aadka mataqaana loogu xisaabtamo line-upka ah inaan ka mid ahaa gobolka baan xasuustaa waa hagaag intaad ka tirsaneed gobolka mudug ciyaartooygana aad ahayd imse koox baad u ciyaartay waad xasuusataa walaal waa mahadsan tahay horta anagu waxaan kasoo bilownay tiimkaasaan kuu sheegayo oo daangal dhihi jiray kabacdi waxaan u wareegnay maadaama dee mataqaana aysan jirin meelo lagu tirsado ama meelo mataqaana magacyadooda lagu cayaara aysan jirin kabacdi waxaanu mataqaanaa xiriir la sameynay bisha cas oo halkaa markaas hay-adda deganeed oo bisha cas la dhihi jiray markaan la sameynay waxaan ka codsanay inay na caawiyaan magacoodan aan ku cayaarno runtii way naga aqbaleen kabacdina waxaan sameynay in funaanado waagaa waxa funaanado maaliyado ma jirin waxaa lagu cayaari jiray t-shirt mataqaana kuwa hadda magacyadooda ku qoran bisha cas ku qoran tahay t-shirtyadaas lagu cayaari jiray inay funaanadaha noocaasna siiyeen kabacdina in mataamba la dhihi jiray oo senegalis ah ayaa meesha haystay runtii asoo laftiisu kooxda ka tirsanaan jiray oo mararka cayaaraha saaxiibtinimo iyo koobka markaan cayaarayno wuu nala cayaari jiray runtii wuxuu naga ballan qaaday inuu kabo iyo maaliyado noo keeni doono muddo ka bacdi waxaa dhacday inuu maaliyadii noo keenay laakiin waxaa dhacday in markii naloo keenay qalabkii oo naadiga loogu talagalay in cayaar saaxiibtinimo oo gobolka nugaal noo yimaadeen marka ma jirin agab ama qalab sportis oo uu gobolku lahaa sababtoo ah waxaa lagu cayaari jiray san kuu sheegay qof walba kabiisa isagaa soo gadan jiray fanaanad t-shirt lagu cayaari jiray marka waxaa dhacday in la yiraahdo maadaama uu keenay qalabkaas ninkaas in gobolka lagu wareejiyo runtii aniga dadkii kasoo horjeeday oo maadaama anaguna adiga aan ahayn qalabkan annaga naloo keenay wixii annaga aan gobolka siinayno aan ku cayaarayno waa gooni laakiin waxaan anagu inaan leenahay oo naadigaan leeyahay bisha cas in xilka lagu soo wareejiyo adigu waxaa dhacday sijiid ka bacdi in cayaartii aanu cayaarnay qalabkiina markay cayaartu dhamaatay neer kusoo wareejiyey kabacdi aduu waxaan naadigaas bisha cas waa ka wareegnay waxaan u wareegnay maxaa la yidhahdaa dahabshiil oo ayagana heshiis la saxiixanay ay noo ballan qaadeen qalab iyo kabo iyo markaan koobka qaadna ama markaan meel fiican soo gaarnay inay intaa kuleynayaan runtaa marka waagaas ma jirin dhaqaale aada u badan ama kambaniyaal ama fursado aada hadda jira maysan jirin waxaa dhacday marka waxaan noqonay naadigii ugu horreeyey oo gobolka jiray oo qalab dhammaystiran ay markaa dahabshiil u keentay qalab dhammaystiran marka halkaasaan kasoo bilaabo mataqaana dahabshiil kabacdina waxaan usoo ciyaaray muddaan ka maqnaa wadanka 2 sano waxaan usoo ciyaaray geeko waxaan usoo ciyaaray ugu dambeyntii dowladda hoose oon koobkii mataqaana labadii koob ugu dambeysay oo midnana la ka qaaday midna aan qaadnay halkaas mataqaana adigaas igu dambeeyay dowladda hoose markaad ciyaartooyga ahayd ma jiraan nugaal oo kale bari oo kale meelo xulka gobolka mudug uu aaday uu kusoo ciyaaray oo banaanka ma jirta way jiraan haa dhowr jeer waxaan tagnay nugaal inkastoo aan bari aan u badnayn barina mar baan tagnay 97-dii aad baan u xasuustaa waxay ahayd kulamo aada u qiimo badan bay ahayd oo 97-dii bay ahayd waxaan la cayaarnay 3 game baan cayaarnay
adoo 2 game bareejo ku dhamaatay 4 game ciyaar game uu banadmay oo mataqaanaa ciyaarta dhex socota mataqaanaa buuq dhacay 2 game bareejo gashay game waana la ka badiyay oo hal iyo baana la ka badiyay marka nugaal oo kale dhowr jeer aan tagay ilaa 4 jeer 5 jeer oo kale waa tagay way jireen ciyaaro gobol oo lagu qabtay 3 gobol oo wadada saaran bari iyo nugaal iyo mudug aan ku ciyaarnay gobolka mudug aan ciyaar mataqaanaa ay sameeyeen maamulkii markaa jiray oo sportska gobolka ay qabteen 3 geesood ahaa ciyaaro badan baa jiray oo aan loobi karin oo mataqaanaa maskaxdeeda aan ka bixi karin ma garato aad u weyn marka intaas ka soo tagno taariikhdaadii ma noo sheegi kartaa walaal waa maasanta Cabdiqafaaro ma jirto horta intaan ka xasuusto ama aan mataqaanaa gobolka mudug ciyaaray waxa jirta wax koob aan ka qayb galay oo waxa jira saddexda gobol bari iyo mudug iyo nugaal oo gobolka mudug lagu qabtay waanu ka qayb galay 97 baan ahayd waxaan qaaday Boosaaso oo anagii barina waxaan galnay bareejo nugaalna waxaan la galnay bareejo bari baa waxay ka badisay marka nugaal sidaas marka bari koob ku qaaday intaas koobkaas aan jiray aan ka qayb galay intii aan joogay gobolka intaas markaan taariikhdaada sports ku ekeysiyo waxaad gobolka mudug ka soo noqotay gudoomiye sports ma noo sheegi kartaa gudoomiyaashii sports gobolka mudug soo maray kuwoodii qaranka metelay oo ciyaartoy markii hore ahaa Cabdiqafaar waa maasan tahay waxaan u maleynayaa sida aan filayo ilaahay aan xariistay 2 qof oo 2 nin oo gobolka mudug qaali ku ahaa kulay mataqaanaa Cabdilaahi Ibrahim Habas aabihii sportska liikara ma aan gudoomiye ma ahayn kulay anaga aabahayagu ahaa sababtoo waxaan xurmeyn jirnay waqtigeedii wuxuu noo ahaa gudoomiye wuxuu noo ahaa macallin wuxuu noo ahaa qofka aan mataqaanaa aan ka faa'iidno sportska mataqaanaa wixii xigmad ama experience aan ka qaadano ahaa markii ilaahay ha u naxariisto qabrigiisana u waasiyo Cabdilaahi Ibrahim Habas iyo waxaan u maleynayaa inuu ahaa Ilyas wax gudoomiyaashii soo maray gobolka waxaan u maleynayaa inay ahaayeen 2 nin baa iga horeysay qofkii saddexaadna anigu ahaa oo gobolka u soo ciyaaray sportska mataqaanaa ka soo ahaa dadkii mataqaanaa laf dhabartu ahaa saddexdaas nin baan ku ahay ma garan wahagaag maadaama aad ahayd gudoomiyaha sportska wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha sidee u wada shaqeyn jirteen walaal horta waa maasan tahay aniga wasaaraddu markii ugu horeysay wasaaradda ay soo magacawday xiriir anaga iyo wasiirka na dhex maray oo baahi markaa jirtay oo gudoomiye sports la rabay in la soo magacaabo waxaa jiri jirtay in gudoomiyaasha xilka laga qaado qofkii rabo la soo magacaabo marka adigu maadaama wasiirka aan toos wada xiriirnay wasiirka ayaa isoo magacaabay magacaabinta la soo magacaabayna waxay ahayd maadaama muddo badan aan kusoo dhex jiray sportska dhalinyarada iyo mataqaanaa wasaaradda qaabka u shaqeysay gudoomiyaasha si loola shaqeyn jiray aan wax badan kala ogaa waxaan wasaaradda ka codsaday wasiirka codsaday maadaama aan shaqaale dawladeed ahay xuquuqda shaqaalaha dawladda inaan qof baahan aan yeesho sababtoo ah waxaan ka cararayay waxay ahayd maadaama wasaaraddu soo magacawday in wasaaraddu ay xilka iga qaado marka waxaa lagu markaa wasiirku ugu qanciyay inaan shaqaale dawladeed ahay haddii aad qalad gashin wasaaraddu kula xisaabtamto haddii lagu soo dacweeyo oo mataqaanaa gobolka laga soo dacweeyana guddi la diro haddii wixii kugu cadaadana markaa xilka laga qaado sidaas wasaaraddu igu soo magacawday wasaaraddan waxaan wada shaqeyn jirnay anigu shaqadeedaan garanay waxaa sababtoo ah qof shaqadiisa yaqaanaan ahaa wasaaraddan waxay ugu tixgelin jirtay shaqada aan hayo sababtoo ah waxaan hayay shaqo culus oo wasaaradda wax taakula ah oo aan ahayn xilka inay ii magacawday ma jirin haddana waxaa lee magacaabay meel aan xafiis ka jirin meel aan mataqaanaa sports mataqaanaa la sheegi karo ama waxa markii la rabo in wax la qabto waa in agabkii iyo aqoontiiba la hayaa baahida ugu badan meesha markaa ka jirto waxay ahayd garsooreyaal ma jirin gobolka la dhigi karo mataqaanaa garsoore ka jiray raggii maamulka markaa jiray iyo madaxa garsoorka la tashaday waxaanu markiiba qabanqaabeynay inaan garsooreyaal gobolka mudug oo dhan
aan tababar u qabano xafiiskii aan furnay waxaan howl badan baan qabano marka 12 garsoore ayaa meesha waxay ka soo baxday waxaan u yeernay macallin garsoore gobolka bari ka yimid oo professional oo heer Soomaali ahaan jiray alxamdulillah aad buu maasan yahay 12 garsooreyaal ayuu noo tababaray hawshaas halkaasaan ka bilownay marka wasaaraddu waxay ahayd in shaqadeeda ugu tixgeliso ana mataqaanaa wixii mataqaanaa aan qabanayno aan ogeysiinta aan siiyo sidaas aan wada shaqayn jirnay wasaaraddu oo shaqadeeda aniga waxaan u ahaa xor u ahaa macnaha sidaan rabo wax u qabsan macnaha aniga maamulkayga anaga aan ugu maxbanaanayn laakiin wasaaraddu waxay ahayd waxa aan qabanayno ayaan ogeysiin jirnay marka laga soo tago wasaaradda gobolka mudug waxa ka jiray 10 koox maadaama gudoomiyihii sportska ahayd kooxaha gobolka sidee u wada shaqayn jirteen walaal horta waa aad baan ugu mahadcelinayaa runtii maamulada naadiyaasha runtii waxay ila shaqeeyeen si hufan oo la dhigi karo qof mataqaanaa shaqo loo dhiibay sidii loola shaqayn lahaa ama ayay ila shaqayn jireen runtii aad baan ugu amaanayaa madaxda naadiyaasha iyo dhammaan dhalinyarada sportska oo dhan aad baan u amaanayaa sidii sharafta lahaa ay ila soo shaqeeyeen magarata markii laga soo tago arrinkaasi waxaa jirtay koobab aad ku qaban jirtay gobolka mudug dhaqaale ahaan yaa idinka caawin jiray walaal waa maasan tahay markii dee meel lagu dhiibo oo mataqaanaa meel lagu soo magacaabo meeshiina aysan lahayn wax dhaqaale ah oo wasaaradda kaaga imaanaya ama dowladda kaaga imaanaya ama maamulka markaa jira ama heer gobol ha noqoto ama heer degmo ha noqoto aysan kaaga imaanin waa inaad adigu isku tashataa waa inaad dadkaaga iyo dhallinyaradaada dal iyo dibadba jira waa inaad ku tashataa runtii waxay ahayd wax maamulka markaa jiray annaga garsoorayaashii maamulkii naadiyaashii dadkii hore dhallinyarada ahaayo sportska ahaan jiray wixii dhan waxay ahayd tala laga wada midaysan yahay ayaan samaynay oo waxaan samaynay in guddiyo aan samayno si dhaqaalihiina loo helo koobkiina mataqaanaa uu u hirgalo marka waxaan samayn jiray guddi annaga maamulka naga madax bannaan oo koobkaasi maamuli jiray wixii qaladoo dhacana asagoo go'aan ka qaadan jiray ciddii qaldanna ganaaxi jiray xagga dhaqaalaha shirkadaha gobolka degan way naga caawin jireen runtii oo ugu horeyso goolis aad baa uga mahadcelinaya runtii goolis shirkadda goolis ee telefoonada runtii mar walba waxay nala garab taagneyd wax alaale waxaan ka codsano markay koobab ka noqoto haddii dayactirta garoonka noqoto way naga caawin jireen runtii aad baan uga mahadcelinaya runtii waxaa kaloo jiray inaan maamulka mataqaanaa ilaahay u naxariisto xisaabiya gobolka oo kale wuuna garab taagnaan jiray wuuna caawin jiray waxaa jirta mararka qaarkood dowladda hoose oo kale ay lafteeda way naga caawin jirtay waxaa kaloo naga caawin jiray dhalinyarada qurba joogta oo kale ay laftigoodu baahida gobolka oo dhan way ka warhayeen ayaguna way naga caawin jireen marka waxay ahayd wax isku tashi annagu aan isku tashanayno awoodda aan haysano iyo waxaan heli karno aan ku tashan jiro وهاجك مادام الله صو عيارتي لود كادي هوري كوي دنبنا أدون نقطة قدومية أخلاقيا محي كل دومية من شيء كرتا ولا wax badan baa u dhaxaysay runtii waqtigeygii aniga ciyaarayay iyo waqtigii ka dambeysay ilaa iyo 2000 laga soo gaaro rag dhalinyaro ah oo quality-gooda la dhigi karo gobolka soo maray bay runtii ahaayeen iyo kuwii ka dambeeyay ilaa iyo mataqaanaa 2005 2006 ilaa iyo rag waxay ahaayeen macnaha dee qof walba qofka ka weyn yahay uu xurmeyn jiray qofkuna haddaadan adigu qofka aad xurmeynin kama helayso qofku inuu ku xurmeeyo marka sportsku wuxuu ahaan jiray inuu qof walba qofka ka weyn yahay ku xurmeeyo qof walba naadigiisa iyo mataqaanaa uu ku mashquuli jiray kooxdiisa laakiin uusan ahayn inuu koox kale mataqaanaa danaheeda uu burburiyo inuu koox kale mataqaanaa waxa ay horumar gaarayso uu ka soo horjeedo maysan ahayn waxa ay dhalinyaro isku xiran mataqaanaa dhaqaale badanna markaa ma jirin oo dee hadda dhaqaalaha jiro iyo qalabka hadda jira maysan jirin marka waxaan isdhihi karaa xirfad ahaan runtii markii la yidhaahdo way ka xirfad badnaayeen dadkii hore sportska ahaan jiray physical markii la yidhaahdana physical ahaanna way ka muuqaal fiicnaayeen runtii sababtoo ah dad waxay ahaayeen sportsku daacad ka ahaa
عالمين تيجري متقانا متقانا نادي انت laga tago biri naadi loo ciyaar aysan jirin qofku uu ku tagi jiray mataqaana rabitaan hobby waxa la yiraahdo ku tagi jiray naadiga marka uu ka tagaynay si hobby uga tagi jiray naadiga uu rabo ayuu tagi jiray marka akhlaaqiyan waxay ahayd istawareegan tirada badan oo aan hadda gudoomiyahan ka soo ahaa waxaan arkaysaa nin baa wax isku mari jiray 10 kooxood oo ka qaadan jiray mataqaana heshiis la gali jiray waxyaalaha noocaas oo kale meesha dhici jiray qofku asoo aan waxba laga seexin ayuu rabitaankiisa kooxdu rabo kula joogi jiray laakiin hadda ayagoo heshiis iyo warqado la kala seexanayo bay haddana aysan cag dhigay marka way kala duwan yihiin ciyaar hadday noqoto akhlaaq hadday noqoto way ka akhlaaq fiicnaayeen hadday physical noqoto way ka physical badnaayeen markii la yiraahdo qofka physicalkiisa xirfad haddii la yiraahdo way ka xirfad badnaayeen sababtoo ah jiilka ka horeeyey uu ka faa'iideysan jiray marka kuwa waxaan karaa jiilkoodii kamaysa faa'iideysan ma aqaan kolley wax sababay laakiin iskuma dhow wax isku dhow ma ahayn laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah in wax iska bedeli doonaan haddii la yiraahdo inta badan waxaa jirtay in horyaal ama koob lagu qabto gobolka mudug xogaa markuu socdo khaladaad yar baa dhici jiray koobkaasna waa la istaajin jiray maxaa sababi jiray koobkaas inuu istaago cabdiqafaar horta waa mahadsan tahay aniga goobjoog baan usoo ahaa runtii anaga intaa maamulkan anigu meesha aan imid 2011 aan imid hal koobba waxaa jiray semifinalkii in xogaa rabshado ay ka dhaceen oo dadweynaha iyo taageerayaashii ka dhacday ay sababtay ciyaartii finaalka inaan la ciyaarin runtii koobka waa macnaha forfeit baan ku bixinay anagoo fiirinayna qaladaadkii dhacay iyo wixii laakiin waxaan ka faa'iidnay qaladaadkii dhacay sidaysa beri u dhici lahayn waxaa dhacday marka inaanu samaynay inaysan koob intuu bilowdo inuusan macnaha uusan dhammaado uusan istaagin ayaa waxaan saari jirnay culayska waxaanu samaynay guddiyo annaga maamulka aan naga madax bannaan garsooraha ka madax bannaan waxaan xorriyaddooda siinay oo shaqadooda mataqaana shaqadooda sidii taa ugu daynay waxay ahayn garsoorku waxay ahaayeen dad madax bannaan shaqadooda uga mahadcelinaya cabdiqani gees way runtii sidii fan ugu shaqayn jiray waxay ahayd dad shaqadooda madax bannaan annaga waxaan ahayn dadkii maamulayay garoonka iyo wixiisa hawsha guddigan aan magacawnay ama dhalinyaradii hore ahaana waxay xor ahaayeen guddi joogto ah oo 5 qofood bay ahaayeen koob walba aan qaban jirnay waan ka codsan jirnay dhalinyaradii ragga waaweynaa sportska ka fariistay inay nala shaqeeyaan ayaga markii waxay sameyn jireen sharciyay soo saari jireen sharciyadaas ayaa waxaa laga seexi jiray naadiyaashuna markaas ka bacday sharcigaas ayay u hoggaansan jireen qaladkii dhaca guddigu ayagaa waxay kasoo saari jireen go-aan naadiyaashuna go-aankaasi qaadan jira haddii qof la ganaaxayo haddii mataqaanaa dhibco laga qaadayo guddigaas ayaa waxay soo saari jireen annaguna waa ku waafaqi jirnay maadaama laysku raacay sidaas marka waxaan ka faa'iideysan qaladaadkii dhacay hore u dhici jiray inaysan dhicin ma dambe ma dhicin koob dambe oo aan bilownay inuu istaago sababtoo qalad markuu dhaco waa inaa wax ka faa'iidaa sidoo birku ku soo laabay marka alxamdulillah intii aan joognay maysan dhicin koob aan qabanay inuu mataqaanaa u istaago وهجاج أنت هذا كبدع عيارته يا مامور كذا محاك ولا تلنيسا ورتوا ما سنت هاي وحربا دلينتا هذا جوكتا يا مامور كان ربعنا نكبلاه مامور كوحن ربا مادام ملك سرى سؤال صراحة مجرته تذكر إنك إن في سنة يعني مادام إن في سنة يعني إن سميسان واحد هذا حد إن حد المقطن oo aynan kala mataqaanaa si hufan mataqaanaa kooxaha cadaalad ugu sameystaan maamulka naadiyaasha ciyaartooyda waxaan ka codsanayaa inay maamulka duruufaha adag ku shaqeynayaan runtii gudoomiye sports ama maamul sports gobol ka shaqeynaya duruufuhu ku shaqeyn karo qof walba uu ogyahay qof aan mushaar qaadanayn oo reerkiisii mataqaanaa caruur iyo reer u joogaan oo subax walba ama galo walba usoo kacaya inuu dhalinyaradaasi madadaaliyo ama koob u qabto ama mataqaana ciyaaro mataqaana
isku dabaridi lahaa maalinba shaqadeeda u qabanaya in haddana uu dhib kala kulmo arrintaas maamulada sportska inay garab istaagaan maamulka sportska iyo gudoomiyaha sportska iyo dhammaan dadka hawshooda oo dhan si mataqaanaa shaqadooda si daacad u qabsadaan ciyaartooyda waxaan leeyahay maamulkiina iyo macallimiintiina waa inay hoggaansantaan inay isgaaraan maba ahaba sharcina ma ahan ciyaartooy iyo maamul inay isku tagaan xaq sharci ma waxaa la rabaa nin walba jaranjaro waa meesha qof walba jaranjaro uu leeyahay waxa weeye gudoomiyaha maamulka ugu sarreeya maamulka naadiga ku xiga macalinka ku xiga ciyaartooyda sidaas oo kale in la isku xurmeeyo ayay mataqaanaa fiican intaasaan kugu dardaarmi lahaa insha allah kulli hadda sportski ismooda socdaa marka insha allah khayr badan baan rajeynaya insha allah waa hagaag maadaama aad gudoomiye hore sports ahayd qayb lixaad lehna aad ka qaadatay garoonka Cawaale dhisidiisa wax ma nooga sheegi kartaa Cawaale stadium iyo marxaladihiisii uu soo maray Cabdiqafaar horta waa maasantaa walaale runtii aniga waxaan u malaynayaa xogaal baan u ahaa baahida ka jirta gobolka intii aan joogana wax badan waa ka qabanay wixii awoodayada aan awoodnana waa ka qabanay wixii aan awood weynana qof wuxuusan awoodin ma qaban karo alxamdulilah rabbil caalamiin laakiin anagu mar walba waxa weeye gobolkii waan ka maqanaa laakiin waan joognaa mar walba sababta waxaan joognaa waxa weeye wax walba ka dhacaya waa la soconaa alxamdulilah maantay gobolku wuxuu marayaa meeshii ugu fiicneed uu marayaa runtii dhalinyarada joogtana waxaan leeyahay iyo maamulka joogaba fursad aad u qaali helin sababtoo anagu fursadaan maana helin fursadda koowaad waxa weeye kow dhalinyaradii dal iyo dibadba jirtay maanta waxay isku duuban yihiin gobolkii inay garab istaagaan iyo maamulka inay garab istaagaan sportska garab istaagaan dhinac walba ha noqoto inay garab taagan yihiin horena loo soo arkay ciyaarihii hore u dhacay oo mataqaanaa meesha ka dhici jirayna loogaa oo hadda koobka ugu dambeeya oo horyaalka ahaa socday dhaqaaligu badnaa baxayay waxaa bixinaya dhalinyarada mataqaanaa dal iyo dibadba joogta fursadda labaad waxa weeye garoonkii Cawaale oo aysan fursad u helin dhan raggii idinka horreeyay ayaa fursad tahay maanta inuu gabagaba yahay marka waxaan malaynayaa fursad aad u qaalisana mataqaanaa baa haysataan garoonkan dhibaatada loo soo maray ilaahayna waa ogyahay dadka gaalka ay joogana way ogyihiin waxa weeye dib ma rabna ugu noqdo Cabdiqafaar qof walba uu ka dheragsan yahay laakiin waxaa la rabaa dhibaatada garoonkii loo soo maray in mataqaanaa laga faa'iideysto oo looga faa'iideeyo dhalinyaradii inay ka faa'iidaan garoonkiina u faa'iideeyaan labadaba inay sameeyaan sababtoo ah garoonkana waa inay u faa'iideeyaan garoonka waa inay ilaashadaan ayagaa leh annagu garoonka waqtiga iyagii cagahan ugu bixi jiray maanta alxamdulilah gabagabo marayaa in mataqaanaa roogii cagaaran la dhigo baa u hartay marka fursad baa hesheen fursaddaa ka faa'iideysta garoonkiinana ilaalsada dadkana laga ilaaliyo si mataqaanaa sportskiina kor u kacana inaan maamulkiina iyo macallimiintiina iyo maamulka sportskan aad xurmaysaan tobanka koox sportska gobolka mudug wax fariina ma u diraysaa tobanka kooxood fariinta u diraya waxay tahay maanta chance haysataan oo aad mataqaanaa awoodda aad leedihiin kusoo saari kartaan muhiimadda idinkeena saaran oo maamulada naadiyaashan ka hadlay waxa weeye kooxihiina inaad kor u qaataan tayadooda ciyaartooy hadday noqoto maamul hadday noqoto kubad hadday noqoto physical hadday noqoto intaasaa idinka awoodda mas-uuliyaddeena saaran waa taas midda labaad aan kula dardaarmay waxay tahay dhibaatada ugu badan ee gobolka ka dhacayso oo xagga wasaaradda uga imaanaysa tiir dhexaadka mataqaanaa lafdhabar waxa naadiyaasha waxaa rabaa shaqada ay leeyihiin ayagu inay qabsadaan wixii banaanka ka baxsan maamulka iskale iyo maamulka gobolka iskale sports waxaa rabaa inaad isku duubnaataan tafaraaruq iyo kala qaybsanaanta iyo xaasinimada in la joojiyo kooxdan hadday faa'iido gaadho waa in lagu dhiirigeliyaa la yidhaahdaa horumar baa gaadheen lana tigsada koox walbana ay tigsataa kooxda horumarkay gaadhay inay gaadho laakiin maahan kooxdan si horumar gaadhay lugtaan qabanaya oo aniga hayla joogto wax soconaya maaha maanta garoomadii waa dhismayaan puntland waxaa la rabaa isbedel in la yimaado xag maamul iyo xag ciyaartooy waxaa la rabaa
inaad ka dhisantihiin aan maamulada naadiyaasha waxaan kula dardaarmayaa naadi walbow sidii kooxdaada aad heer fiican u gaarsiineed ka fikir sidaasaan dhihi lahaa aad baad mahadsan tahay barnaamijkan aan ku wareysto sportsiga gobolka mudug ciyaartooydooda macalimiintooda guddoomiyaashooda sidee u aragtaa cabdiqafaar maxamed cali aad baan horta kaaga mahadcelinaya mar labaad iyo mar saddexaad runtii waxa weeye waa fikir aad iyo aad macquula in dib loo xasuusto noloshii wacaneed ee lasoo maray in dib mataqaanaa recording ay u noqoto dhalinyarada soo koraysa hadda ama wiilka hadda dhalanayo gobolka mudug jooga inuu ogaado garoonkan Cawaale Stadium maxanaha yaa ku ciyaari jiray hadda waa aragtay social media meel fiican buu marayaa marka aad iyo aad waxaan kaaga mahadcelinayaa runtii wareysiyada ala yeelatay dhalinyaradii hore sportska ahaa maamuladoodii garsoorayaashii dhammaantood aad baan kaaga mahadcelinayaa waana kugu dhiirigelinayaa meesha ka sii wad jazakallah khayr mataqaanaa mar walbana waa ku garab taagana cabdiqafaar wax allaale waxaad hiil iyo hooga kuwala garab taagana aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa aad baad u mahadsan tahay intaa waxaan noogu eg wareysigeeni waqtigaaga muhiimka aad siisay waad ku mahadsan tahay waxaan ku rajeynayaa mustaqbal ifaya waxaan ku leeyahay fiid wanaagsan waan ku salaamaya dhegaystayaal ku soo dhawaada channelkayga Hanfada Production fadlan wixii su'aal ah oo aad weydiin lahayd igu reeb qaybta commentiga please subscribe comment like and share for notification si markasta aan wax cusub u soo gasho kugu soo dhaco mahadsanidin